shirki u dambeeyay ee golaha amniga qaranka ee ka dhacay magaalada Muqdisho bishii Febraayo waxa lagu go'aamiyay in shirka xiga uu ka dhaco magaalada Baydhabo sababtaas aan keentay maanta in madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo wafdi hogaaminayo ay soo gaaraan magaalada Baydhabo waxa sidoo kale saaka halkan yimid ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Madaxweyne Xasan Cali Khayre xubno ka tirsan golaha wasiirada oo xubno ka ah golaha amniga qaranka waxa sidoo kale Baydhabo soo gaaray madaxweynayaasha dowlad goboleedyada oo ayagana shirka qayb ka ah xubnana ka ah golaha amniga qaranka waxaan rajaynaynaa inta shirkan uu socdo inay ka soo baxaan natiijo wanaagsan oo si dardar gelinaysa arrimaha federaaleynta dalka kheyraad qaybsiga iyo in dalka lagu soo dabaalo siyaasad degan oo ku salaysan wada tashi waxayna muujinaysaa shirkan maanta Baydhabo ka dhacaya sida dowladda federaalka Soomaaliya uga go'an tahay inay daadejistaan nidaamka federaalka ee dalka